xiddiga caalamiga ee Lionel Messi oo taariikh cusub ka sameeyay isreebreebka koobka adduunka ee 2026. Kabtanka xulka qaranka Argentina Lionel Messi ayaa taariikh cusub dhigay kadib markii la soo afjaray isreebreebka koobka adduunka 2026 isagoo ah goolaliyaha ugu sareeya tartanka Koonfurta Ameerika. Tani waa markii ugu horeysay ee uu xiddiga reer Argentina ku guuleysto horyaalka goolasha ee isreebreebka ee qarankiisa. Fadlan haddii intaan aad soo gaartay walaal waxaan kaa codsanaynaa muuqaalka inaad like noo saarto, subscribe noo saar, haddii channelka cusub tahay noona share garay. Sidoo kale xiddigan Messi ayaa ka qayb galay 6 jeer kulamada isreebreebka koobka adduunka wuxuuna dhaliyay 4 gool safarkii koobka adduunka 2010, 10 gool tartankii Brazil ee 2004, 7 gool isreebreebkii Ruushka ee 2018 iyo 7 gool socdaalkii Qatar 2022 halka uu dibi ahaanba gool la'aan ahaa isreebreebkii xulka wadanka Jarmalka lagu qabtay 2006 oo Itaaliya ku guuleystay. Isku dayii uu dhawaa uu ku noqon lahaa goolaliye sare wuxuu ahaa isreebreebkii 2014 markaas uu dhaliyay 10 gool isagoo hal gool ka hooseeyay weeraryahankii Uruguay ee saaxiibkiisa Luis Suarez. Sidoo kale haddase Messi ayaa rikoor cusub dhigay isagoo 8 gool dhaliyay kulamadii isreebreebka sanadkan hadda lagu jiro wuxuuna sii wataa inuu taariikh ku sameeyo xulka Tango isagoo oo indhaha ku hayo inuu koobka adduunka 2026 oo cadar ka dhigo sidii World Cup u dambeeyay. goolaliyaha u sareeya isreebreebka 2026 Koonfurta Ameerika ayaan dul istaagi doonaa ciyaaryahanada goolalinta sida u kala horeeyaan ama sida u kala sareeyaan. ciyaaryahanka Lionel Messi ayaa hogaaminaya wuxuu leeyahay waa wadanka Argentina wuxuu leeyahay 8 gool halka kaalinta labaad ku jiro Luis Diaz ee Colombia u dhashay sidoo kale hadda Bayern Munich u dheelo ciyaaryahankii hore Liverpool 7 gool ayuu leeyahay saa kaalinta labaad ku jiro sidoo kale isla kaalinta labaad ama saddexaadna ku jiro isla gool ay yihiin Manuel Tedros oo Bolivia ayadana u soo baxday sidoo kale 7 gool ayuu leeyahay intaasoo Bolivia isreeb ay dheeli doonto. halka Salomon Rondon oo Venezuela 6 gool ayuu dhashtay ciyaaryahankaas. Ena Valencia Ecuador idan kaalinta labaad soo baxday 6 gool ayuu leeyahay. Darwin Núñez Uruguay waa ciyaaryahankii u dheelay Liverpool oo hadda Saudi Arabia ay ku xamaalin doona 5 gool ayuu leeyahay. marka tartankaas waa isreebreebka Koonfurta Ameerika oo goolaliyaashii ayaan dul istaagay. sidoo kale Lionel Messi ciyaaryahankan ama xiddigan ee hadda u dheel kooxda Inter Miami ee ka dhisan wadanka Mareykanka ayaa taariikh badan sameeyay asoo ku guuleystay 7 jeer Ballon d'Or. sidoo kale hadda wuxuu rabaa isla sanadkan 2026 hadda sanad 2025 lagu jira sanadka dambe 2026 bisha 6 markay tahay ama dhamaadkeeda sida World Cup la qaban doono xilligaas inuu cadar ka dhigo wadankiisa xulkiisa uu hanto markii labaad uu difaacdo ayuu rabaa maadaama sanadkii u dambeeyay lagu qabtay Qatar uu asaga ku guuleystay macnaha inuu kaabkas u qaado xulka haddana wuxuu rajeynayaa inuu taariikh kala sameeyo ama cadar kala ka dhigo 2 jeer uu qaado xulkiisa maadaama haddana da'diisa ay gabagaba marayso xilliyada ciyaaraha uu ka fariisanayo inkastoo wali uusan shaacinin laakiin wuxuu sheegay inuu World Cup kan dheeli doono asoo ku hamina inuu isbedel badan sameeyo. intaas waxaan naga faaladii ama falaqeyntii ciyaaryahankan da'da weyn ama ciyaaryahankan qabiirka ah ee Lionel Messi laacibkan ayaa intaas week sidoo kale haddii intaan soo gaarto muuqaalka ku maasantahay like noo saar muuqaalka haddii hore noo saarin subscribe haddii noo ahayn fadlan waxaan kaa codsanaa bahda sports haddii jeceshahay inaad muuqaalkan subscribe noo saarto noona share garay waana ku maasantahay walaal.